kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka aadana oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo diyaariyay mooshin meesha looga saarayo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Daney iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash iyo Siciid Daney oo casuumad u fidiyay dhammaan xildhibaanada baarlamaanka Puntland si uu isaga baajiyo mooshinka ka dhanka ah xukuumaddiisa ajaanib lagu qabtay dagaalkii ka dhacay degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud oo la soo bandhigay iyo mas'uuliyiinta iyo saraakiisha ciidanka ee maamulka Galmudug oo shaaca ka qaaday jabka ay kooxda Al-Shabaab ku gaarsiiyeen degmada Baxdo iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo shir muhiim ah oo ku saabsan amniga guud ahaan gobolka Geeska Afrika uga qayb galay waddanka Itoobiya qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo warbixinadan soo gelino inuu ku bilownay sida hordhaca wararkeena aad ku maqasheen madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Daney ayaa bilaabay olole ka dhan ah mooshin ay diyaarinayaan xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland kuwa oo doonaya inay meesha ka saaraan guud ahaan xukuumadda uu hogaaminayo Siciid Cabdullaahi Daney ayay xildhibaanadu u jeedinayaan eedeymo tirabeel ah oo soo wajahay xukuumaddiisa oo ku eedeysan xil gudasho la'aan iyo inay hoos u dhigtay dhaqaalaha Puntland amnigiina uu deegaanada qaar faraha ka sii baxayo sidoo kalena ay gudaha Puntland ka abashooyin uu madaxweynuhu waxba ka qaban waayay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Daney ayaa baarlamaanka ka codsaday inuu la qaato kulan albaabadu u laaban yihiin xilli ay soo baxayaan warar sheegaya xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay wadaan mooshin lagu kala dirayo xukuumaddiisa kuwaasi oo la tilmaamayo inuu ka dhashay khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo mar kale soo laba kacleeyay fariin uu madaxweynuhu la wadaagay xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland ayuu kaga dalbaday shir degdeg ah inay isugu yimaadaan si looga arinsado xaaladda guud ee Puntland gaar ahaan xiisada ka dhex ururtay xukuumadda iyo baarlamaanka madaxweyne Daney wuxuu doonayaa in la baajiyo mooshinka lagu kala dirayo xukuumadda Puntland xildhibaanadu ay diyaarinayaan xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Puntland ayaa sheegay inay soo gaadhay fariin uu madaxweynuhu u soo diray islamarkaana uu ku casuumay kulan ay albaabadu u xidhan yihiin una sheegay in madaxweynuhu ka dalbaday golaha wakiilada inuu la hadlo islamarkaana uu la yeesho kulan ay riduhu laaban yihiin sida gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo xildhibaanada kula hadlay hoolka baarlamaanka isagoo ku wargeliyay gudoomiyaha baarlamaanka in loo soo diyaar garoobo kulanka uu xildhibaanada ku casuumay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Daney dhinaca kale Cabdiqani Dhaashan oo kamid ah xildhibaanada Puntland ayaa bartiisa Facebook ku qoray xukuumadda halala xisaabtamo iyo mudanayaasha baarlamaanka axad madaxweynaha qadaha u sameeyo ma fahmi karo ujeedada laga leeyahay ayuu yidhi xildhibaanku isagoo oo tuhun geliyay siduu Siciid Daney xilligan kada xildhibaanada ugu casuumay kulan gaar ah aqalka madaxtooyada kaasi oo dana qarsoon laga leeyahay sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee Puntland ay lagu magacaabo Cabdiqani Dhaashane waxay ku soo aadaysaa arrintan iyadoo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Daney iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash uu cirka isu sii shareeray khilaafka oo marar badan soo laabtay ayaa salka ku haya qaabka ay xukuumaddu u shaqeyso wuxuuna cirka isu shareeray intii uu Siciid Daney ku owlanaa ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya isagoo Siciid Daney waqtigaasi ka shaqaynayay sidii uu ku helay kursiga madaxweynaha Soomaaliya intii uu Daney ku jiray ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya Karaash wuxuu aaminsanahay in Siciid Daney uu soo heli doono kursiga madaxweynaha Soomaaliya uu si fudud ku noqon doono madaxweynaha Puntland taa oo ku dadajisay Axmed Karaash inuu xilalka ka qaado wasiiradii ugu muhiimsanaa xukuumadda Puntland sida wasiirka maaliyadda iyo wasiirada amniga iyo arrimaha gudaha inkasta oo digreetada Axmed Karaash ay shaqayn weyday oo hadda ay shaqadoodii iska sii wataan wasiirada uu xilalka ka qaaday Axmed Karaash xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo xiisada soo farageliyay markii uu Siciid Daney dib ugu laabtay Garowe ayaa hadda waxay ku doodayaan in loo baahan yahay loo soo afjaro khilaafka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland in ahaanba xukuumadda meesha laga saaro oo la qaato laba qodob midkood in la daayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo la kala diro xukuumadda dhammaanteed maadaama labadoodu doorasho baarlamaan ay ku yimaadeen kadibna lasoo dhiso xukuumad la isla ogol yahay oo tayo leh iyo in la israaciyo dhammaan dhinacyada oo meesha laga saaro madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa lana galo doorasho cusub Siciid Daney wuxuu doonayaa in la baajiyo mooshinka xukuumadda lagu kala dirayo oo aan isaga wax weerar uga imanin dhinaca baarlamaanka balse taa beddelkeeda wuxuu aaminsan yahay Siciid Cabdullaahi Daney in cidda dhibaatada keentay ee mudan in meesha laga saaro madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Karaash
uu Siciid Deni hadda dhaqaale ku bixinayo sidii isaga meesha looga saari lahaa. Lama oga ujeedooyinka kale ee laga leeyahay kulanka Axadda marka laga soo tago warkan ka soo yeedhay mudanayaasha baarlamaanka Puntland iyo gudoomiyaha golahaasi madaxweynuhu casuumad sameeyey iyo arrinta sida weyn loo hadalhayo ee ku aadan mooshinka xildhibaanada Puntland ay ku doonayaan in lagu kala diro xukuumadda hogaamiye madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. Axmed Kiraash wuxuu ku doodayaa in haddii la doonayo in lasoo afjaro khilaafka isaga iyo madaxweynaha marka hore meesha laga saaro wasiiradu xilalka ka qaaday ee maaliyadda, arrimaha gudaha iyo amniga oo ka mid ah wasaaradaha ka agdhow Siciid Cabdullaahi Deni oo mas'uuliyiinta ugu sarreeya wasaaradahaasi maadaama wasiiradaasi xidhiidh dhow la leeyihiin Siciid Deni isaga si gaara ugu shaqeeyaan. Axmed Kiraashna ay isku dhacsan yihiin halka uu Siciid Deni aaminsan yahay cidda foodada wadda ay tahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Kiraash oo isaga loo baahan yahay in tallaabo laga qaado oo baarlamaanku ay mooshin ka keenaan. Xiisadda Puntland ayaan la ogeyn halkay saldhigan doonto iyo siduu Siciid Deni uu isagu xallin lahaa mooshinkay wadaan xildhibaanada baarlamaanka. Dhanka kale, maamulka degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan degmadaasi ayaa goob fagaaraha ku soo bandhigay meydadka xubnihii ka tirsanaa kooxda Al-shabaab ee lagu dilay dagaalkii ka dhacay degmada Baxdo halkaasi oo Al-shabaab weerar ku soo qaadeen. Waxaa kaloo lagu soo bandhigay saanad ciidan oo laga furtay dagaalamayaasha Al-shabaab ee weeraray Baxdo iyo maxaabiis nolosha lagu qabtay kuwaasi oo magaalada hadda lagu hayo. Saraakiishu waxay sheegeen in la tiriyey meydadka 70 dagaalame oo ka tirsan Al-shabaab waxaana ragga la dilay ku jiray xubno ajaanib ah sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Baxdo. Sidoo kale waxaa nolosha lagu qabtay oo fagaara magaalada ku yaala lagu soo bandhigay nin isku dayay inuu isku qarxiyo gaari laga soo buuxiyey waxyaalaha qarxa oo gacanta lagu dhigay hor intuuna fulinin qorshihiisa ismiidaaminta isaga oo waday gaari lagu soo raray walxaha qarxa oo uu doonayay inuu la beegsado shacabka magaalada Baxdo balse gacanta lagu dhigay. Maamulka magaalada Baxdo ayaa sheegay in dagaalamayaasha nolosha lagu qabtay ee soo weeraray magaaladaasi la horgeyn doono cadaaladda islamarkaana dagaalkii ka dhacay Baxdo uu Al-shabaab u yahay cashar lama ilaawaan ah oo ay weligood xusuusnaan doonaan maadaama ay kala kulmeen guuldarro qadhaadh iyaga oo kolkii hore rajeynayay in magaalada la wareegaan balse gacanta lagu dhigay hubkii ay haysteen. Sidoo kalena 70 dagaalame looga dilay. Madaxda dowladda federaalka ugu sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwa maamulka Galmudug ugu sarreeya madaxweyne Qorqor ayaa howlgalka geesinimada leh ku ammaanay dadka reer Baxdo iyo ciidamada kale ee u soo gurmaday. Reer Baxdo waxay dowladda dhexe iyo Galmudugba ka heleen ballanqaadyo iyo garab istaag buuxa oo la xiriira inay dowladdu ka caawin doonto dadka magaalada Baxdo sidii ay u gaadhi lahaayeen in hadafkooda islamarkaana ay isaga difaaci lahaayeen kooxaha argagixisada oo dhowr jeer magaaladaasi weerar ku soo qaaday doonaysana inay la wareegto. Sidoo kale ugu yaraan 42 arday oo degmada Baxdo ku dhammaystay waxbarashada dugsiga sare ayaa degmadaasi ka galay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee dugsiga sare waxaana ardayda imtixaanka u fadhiisatay ku soo aaday iyada oo shalay halkaasi dagaal qadhaadh ka dhacay waxaana in ardaydu imtixaanka ku galaan magaaladooda ku timid geesinimadii ay sameeyeen dadka deegaanku ay isaga difaaceen kooxda Al-shabaab. Ugu dambeyn, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa shir muhiim ah oo looga hadlaya amniga geeska Afrika kaga qayb galay magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya. Wafdi saraakiil ah oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Xijaar ayaa gaadhay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaasi uu kaga qayb galay shirweynaha booliiska adduunka ee Interpol inta bartamaha iyo bariga Afrika kaasi oo ka dhici doona magaalada Addis Ababa caasimadda wadanka Itoobiya. Generaal Xijaar ayaa kulan gaar ah la qaatay taliyaha ciidanka booliiska Itoobiya oo ay ka wada hadleen iskaashiga dhinaca amni ee labada wadan ee dariska ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Xijaar wuxuu sheegay in amniga Soomaaliya uu soo hagaagayo islamarkaana ay korodhay awoodda ciidamada booliisku u leeyihiin ka hortagga iyo ka dabatagga dembiga. Wuxuuna sheegay inay sidoo kale iskaashi buuxa la yeelan doonaan booliiska guud ahaan caalamka gaar ahaan kuwa wadamada dariska la ah Soomaaliya ee Itoobiya ay ku jirto. Taliya Xijaar ayaa sidoo kale intuu kulanku socdo la kulmi doona taliyayaasha dhigiisa ee wadamada gobolka ee shirkaasi ka qayb galaya. Soomaaliya ayaa sare u qaadaysa xuduudda ciidankeeda amniga gaar ahaan ciidamada booliiska oo tababar iyo tayeyn xooggan oo dhinaca aqoonta iyo qalabka ah la siinayay sanadihii ugu dambeeyay waxayna Soomaaliya ka helaan tababarka kala duwan. Ciidankeeda booliisku wadamo dhowr ah ay ku jiraan Talyaaniga, Turkiga, Jabuuti iyo dalal kale oo Soomaaliya ka taageera dhismaha ciidamada booliiska iyo tayentooda. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay sidaas iyo nabadgelyo.